bismillaahi raxmaani raxiim. waa mar kale cabdiqani cali maxamed iyo koorsadii waa maxay kombuyuutar cashirkeedii afraad. koorsadaas oo qayb ka ahayd koorsooyinka aan ku daraasaynayn barashada aaladda kombuyuutarka. daawadaha qiimaha sharafta iyo maamuuska iga mudana haddii aan dib ku xasuusiyo casharadii hore oo aan soo dhaafnay, waxaan ka soo hadalnay wax la yidhaahdo kombuyuutar. waxaan sheegnay inta noocoo jirta oo kombuyuutaro ah. waxaan ka soo hadalnay qaybaha kombuyuutarka oo ugu muhiimsanaayeen hardware iyo software. waxaan soo sharaxnay wax la yidhahdo hardware oo aanu soo kala saarnay 5 qaybood oo waaweyn. waxaan rabnaa maanta casharkeena afraad inaan uga hadalno qaybtii u horeysay hardware-ka oo la yidhahdo input device. su-aasha kuwaad oo ismudiinta mudan waxay tahay waa maxay input device? input device waxa ay suurtageliyaan in la soo geliyo kombuyuutarka xogay maxaa tahay? waa wax aan weli la process garayn. si kale haddaan u yidhaahdo, xogtu waxay ka kooban tahay xarfo iyo nambaro aan la fahmi karin markaas ilaa looga bedelayo information. kuwa ugu caansan input device waxaa ka mid ah keyboardka maxaa loo isticmaalaa? waxaa loo isticmaalaa in lagu soo geliyo kombuyuutarka text wax la yidhahdo qoraal. waxaa jira wax la yidhahdo mouse ka mid ah. mouse-kana shaqadiisu waxay tahay point wax la yidhahdo in wax lagu tilmaamo ama select item, in item lagu doorto kombuyuutarka dhexdiisa. waxa la yidhahdo waxaa ku xiga marka oo waxyaaba ugu caansan ka mid ah scanner wax la yidhahdo. scannerku wuxuu yahay transfer text and images to the computer. qoraal banaanka yaalla oo warqad ku qoran ama foto banaanka taalo ayadana sidoo kale warqad ama kugu samaysan karbad ayaa scanner marinayda kadib uu kombuyuutar ku geynaa. footadaas waa ka bedeli kartaa, sidoo kale qoraalkaasna waa ka bedeli kartaa. waxaa la yidhahdaa marka waxaad copy ahay oo soft copy ka dhigaa. marka anigu ugu faa'iideysanaya casharkan talo muhiim iga qaado. haddii aad tahay qof shahaado haysta ama dukumiinti dhul oo kale, waxaad ku samaysataa scankaas. madbacadoo kale waa laga helaa, inta badan madbacadaha professionalka way haystaan. scannerkaas marka wuxuu kuu suurtagelinaa inuu xogtaada kuu kaydiyo. waxaan haddii ay nahayd copy oo ay banaanka yaalaan, wax walbaa ku dhici kara. weliba hadduu rabo jiirka baalka la yidhahdo oo cadowga kaa cuni kara. marka haddii aad ku samaysato scannerkaas, waxaad ku kaydsan kartaa xogtaada online oo kale, gmail haddaa leedoo kale oo ku shubo kartaa. shahaadadaada marka hadhowtii si caadiya aad daabacadda u geysani haddii ay ka halaawdo tii hore, ayadoo waxaba uusan qoraalka bedelin, fartu sidii tahay, wax uusan kaa bedelin, sidii ay ku ahayd oo softi kaaga dhigaa bis. marka scanku waa midka ugu muhiimsan input device-ka. baahida wuxuu daboolaa marka in ay wixii ka halaabaan oo kale, inta haddii meeshoo kale ay ka guurto oo kale. xilliyadii burburkii Soomaaliya dad badan ku dhaceen oo dukumiintigoodii waayeen dhulalkoodii. marka waa arrin aad u muhiim ah. waana kugu boorinaa inaad scan marsato waxaada oo wax alle shahaadadii waxaas oo kale aad ka dhigato soft copy meesha ay ka ahayn awla raad copy adigoo haysta aad copygaada oo iska luminay. haddii aan kasii socdo marka waxa la yidhahdaa touchpad waa sagxadda laptopka uu leeyahay. waxay shaqo ahaan la mid tahay muuska, waana qayb ka mid ah muuska. muuska haddii aan wax yar dib kugu laabto, waxaa lasoo saaray 1984. ma ahaan marka baahi loo waayo keyboardka inaan howlaha badan laga qaban karin, oo uusan keyboardka aan wax lagu tilmaami karin ama aan select item lagu samey karin. intaba keyboardka waa lagu samey karaa, laakiin xoogaa graphics-ka iyo waxaasoo kale uu fiican yahay muuska. input device-ka marka waxaa jira waxyaaba looga maarmi karo oo alternative ah, sida voice recognition wax la yidhahdo ama speech recognition oo kale. waxyaabahaas marka waa inaad kombuyuutarka aad la hadashid caadi, adoo mouse isticmaalin, keyboard isticmaalin, aad la hadlida back, next, go. waxaasoo dhan waa dhigi kartaa kombuyuutarka oo caadi adigoo saarin gacnahaada. waa qayb lagu soo kordhiyo kombuyuutarka. marka taasoo kale, laakiin sorry ma yaqaano afka Soomaaliga oo inaad tiraahdo dib u soo laabo, horey u soco, ka bax meeshan, kaa yeeli maayo sababtoo kuma programsana. marka voice recognition oo kalena waa lagu samey karaa. haddii aad aragto qof kombuyuutarkiisa la hadlayo, update iska dhig oo hala yaabin. keyboardka marka aan ku bilowno, keyboardka horta shaqadiisu waxay tahay in lagu soo geliyo qoraal kombuyuutarka. wuxuu u qaybsamaa 2 qaybood, standard keyboard loo iyo ergonomic keyboard wax la yiraahdo. standard keyboard marka
waa mid standard oo la isla yaqaan, waa wax standard ereyga standard waad fahmaysaan. Ergonomic keyboardna waa keyboard kale oo aan standard ahayn laakiin standardka oo ka fiican yahay oo dhaawaca gacmaha iyo daalka iyo waxaasoo dhan meel la saarto uu leeyahay. ayagu imagena gadaal ayaan ku arki doonaa haddii la yidhaahdo. waxaan rabaa inaan ka hadlo marka kiiska ama furayaasha uu iska leeyahay keyboardka. wuxuu leeyahay 5 fure alphanumeric keys oo ah ka kooban letterska iyo symboliska ilaa 7 xarfa ah iyo symboliska sida exclamation mark, question mark, quotation, double quotation, column, semicolon, calaamadahaasoo dhan sign dollar waxaasoo dhan ayaa waxaa la isku yiraahdaa alphanumeric keys. function keys waa la yiraahdaa jira oo keyboardka ku yaala oo F1 ka bilaabana qaybta koriya ku yaala ilaa F12. laptop keyboardyada qaarna F1 ilaa F15 ay gaaraan. marka waxaa ku jira waa function keys la yiraahdaa. haddii kombiyuutarada qaar codka laga dheeray karaa marka video daawanayso kale codka waa laga gaabi karaa. function keys la isku yiraahdaa marka kuwaas. modified keys waa la yiraahdaa jiraan oo ah control shift iyo alt ayagana kuwaas modified keys la numeric keys waa la yiraahdaa jiraan oo 1 ilaa 0 afarta operation la yiraahdo operation mathematics waa la yiraahdo oo u qaybiyo ku jir ku dartiyo ku dhufadi iyo ka jartiyo kale. cursor movement keys waa la yiraahdaa jiraan oo arrowska iyo page up page down oo home insert iyo delete intaasna waxaa la isku yiraahdaa cursor movement keys. waa keyboardka furayaasha loo kala saaro. alphanumeric keys oo kale waxa magac kale loo yaqaan jira toggle area la yiraahdaa. magac kale waxaa jira marka loo yaqaano modified keys. magaca kale oo loo yaqaano modified keys toggle keys ayaa loo yaqaanaa. cursor movement keys magac kale loo yaqaana jira haddii aragto buugagta qaar waa inaan ku ogaataa navigation keys ayaa la isaga yiraahdaa waa isla mid. waxaa lagu daraa kale keyboard shortcut key kuwa la yiraahdo oo window key calaamada window key ku sawiran tahay iyo application key mid kale la yiraahdo oo asaguna right clickta keyboardka meesha right click laga dhigi lahay waxa la yiraahdo right click oo aan dib ka arki doono meesha laga dhaha application key la yiraahdo keyboardka. laptopyada qaar waxa la yiraahdaa waxa ku jira media control button mid la yiraahdo ku jira internet control button laakiin sida u badan 5tan qaybood oo furayaal ay iska leeyihiin keyboardka. haddii markii image aan u imaano standard keyboard horta waxaa ku aqoonada kuwirti inay isku xigaan erayadaas Q W E R T Y inay isku xigaan. haddii isku xigaan keyboardkaas waa standard erayada ku aqoonsiga ka mid ah. ergonomic keyboard asagana image kan uu leeyahay waa sawirkaas meeshaas kala gacanta la saarana waa qaab ku samaysan u jeedaa masina asagu waa meel gacanaha la saarto lagu nasto leeyahay waana ka casirsan yahay standard keyboard. haddii aan u gudbo marka muuska shaqadiisu waxay tahay waa point device horta waxaa lagu tilmaamaa waxna waa lagu doortaa. qaybaha uu leeyahay marka waxa waaye trackball, trackpad, integrated point device. trackball marka waa kaas wareegsan oo trackball la yiraahdaa. noocyo badan sawiradiisu haba kala duwanaadaan laakiin marba hadduu wareegsan yahay trackball. trackpad waxaa loo yaqaanaa sagxadda kombiyuutarka laptopka uu leeyahay. IBD ayadana waa xarfahan dhexdooda ku taala waa integrated point device ayadana waa la mid waa point device kale sida muuska camal u shaqeynay saas aad u wareejinay kor inta farta ka saartid meel alla meesha aragto kombiyuutarka aad ku tagi kartaa. integrated point device la yiraahdo. muuskana intaas ayaan u qaybinaynaa. haddii aan gudbo marka shaqada muuska uu qabto wuxuu qabtaa 5 shaqo. pointing wax la yiraahdo, clicking wax la yiraahdo, right clicking wax la yiraahdo, dragging and double clicking wax la yiraahdo. pointing waxay tahay waa in icon kamid ah iconada kombiyuutarka inaad tagtid asaas u dul saartid muuska falaartiisa. clickingna waa inaad hal mar left muuska click hal mar ku dhifatid. right clickna waa inaad right-ka midig qaybta midig muuska hal mar click ku siidid. draggingna waa inaad left muuska qabatid dhab siidid kadib meel alla meesha u rabtid aad geedid. double clickna waa inaad 2 jeer left muuska ama qaybta bidix ee muuska 2 jeer dhag ku siidid si kuwantali waliba si isku xigta.
let's go marka practice kaala aan ku tuso shantaas shaqo oo qabanayo muuska computer sidiisa dhanba waa itus oo ay taabsi waxa la isku dugdugaa ma jiraan kow shaqada kuwaad aan ku bilaano point waa inaa saas u dulgeeda itemkas point waa shaqadaas kilig wax la yiraahdo waa inaa qabatid left mouse ka hal mar kilig ku sii hadda waxba ku furmayaan information lagu soo bandhiga xogta ku saabsan itemkan aad dooratay kan oo kale way ku kala duwan soo jeed date creator ko ku sheega size-kiisa oo kale file-kan موجودة اسكو مدمان وكليك هل مرة لفتي مسكقون هذا كليك آسيني بس هل مرة تابني والريحة معنا واحد اللي واحد جيران رايت كليك شغوينكو كلا قبني واتقي ذا رايت كليك على هذا واحد قبني سا قيبت ميديك موسكو اسكليه فاكو صباحي اوبن waxaan dhan ku soo baxay kuubi meesha laga sameeyo duut send it to mail salaam meesha leeyahay move delete hadarabti ina magac ka bedesho properties ka darabti ina waad waxa soo dhan si loo soo muujina waxa tagaysaa iconka aad ku sameynaysaa right click waxa kale shaqooyinka uu qabanayo kamid ah dragging and dropping uu sameyn karo file-kan halkan inuu umaad begin artana ka qaad waa jiid halkaas ageen markaysa dadka qaar waxa laga yaabaa in ay meesha markii jiid maagan uu jiid waayo oo halkaas kale u tag waayo waxa ku haysta ciladeer meel laga soo ogolaado ama laga diidaa jirta inkastoo aad bilowtiin haddana waan sameynaa ka faa'iideyso cilmi kastoo aad aragto waxa ay ka faa'iideeyaan si aan ugu sii baraatikeena shaqadii muuska waxa qabanaysaa right click ama qaybta midig ee muuska hal mar taabo kadib waxa ku soo bixi doona view ya amar kale waxaad ka sii dooranaysaa view pointing ku sameynayda ku tijaabi shaqooyinka pointing sameynay click hadara clickna waa ku sii kartaa pointkaas laakiin asaga ku soo baxay marka point ku sameeyda amradana ku soo baxay waxa ka doorata auto arrange icons kaas hal mar click ku sii oo qabo left mouse kadib hadii aan maagto markii jiid maayo markaysa dragging and drop ka yiri maayo macalinku waa istiraadin ciladaas ku hayst waana ku sheegay hadii aad rabto marka in ciladaas iska bidi meesha ku laabanay hal mar qabo qaybta midig muuska kadib auto arrange icon tagta ka qaad kadib meel alla meesha rabta geey kartaa ma isfahmayna waxa noo dhiman marka waxa la yiraahdo shaqooyinka muuska waxa la yiraahdo double click maxay tahay waa open amal ina wax furtid laba jeer oo isku xigta click ku siinay xageena qabanay man bidix ma simidi qaybta bidaxa qabanay laba jeer tusaale qaybta bidaxan hadaya laba jeer ayaan rabaa click inaan ku siiyo aan furo soo jeedaan hadii aad tahay qof cusub ama computer markaas ku cusub ama hadda soo gatay way kugu adkaanay waa ku warwareeri doonta la qabsiyo ka rabi doona wax dhiba ma lahan ku celceli waad keeni doontaa insha Allah casharkeena maantay oo ahaa input device waxaan halkaas ayaan ku soo gaabinaa fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe dheh waxaan kaloo kugu la talinaa casharada inaad step by step la socotid oo qaybta ka horreeyay aad soo daawatid waana ku maasantaa daawashada videogan course wuxuu maraa qaybihii dhexe ayaan ku jirnaa welina koorsada ogaaw waxaan ugu jawaabaynaa intaas oo dhan casharadaas waxa la yiraahdo computer muxuu yahay maasani daawade kulanka xiga ya casharkeena shanaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.